hay-adda kheyriga ee Ani Charity Foundation ayaa magaalada Hamburg ku qabatay kulan wacyigelin iyo aqoon isweydaarsi loogu talagalay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Nawaaxigiisa. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray arrimo muhiim ah sida wacyigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee la tacaalaya mukhaadaraadka iyo rabshadaha, fursadaha shaqada iyo waxbarasho, iyo xoojinta midnimada qoysaska Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka. marka fikradiin waa noo muhiim waayo arintan burburka qoysaska iyo caqabadaha familka waa mid u taal community-ga Soomaaliyeed sidii loo xalin lahaa. Gudoomiyaha hay-adda Ani Charity Axmed Soomaali ayaa sheegay in tirada dhalinyarada Soomaalida ee ku lug yeelata mukhaadaraadka iyo dambiyada ay sii kordhayso, taasi oo sababtay in dhalinyaro badan ay ku dambeeyaan xabsiyada dalka. Wuxuuna tilmaamay in hay-addu ay ka go'an tahay in dhalinyarada la gaarsiiyo fariin toogan iyo wado fursad leh. waxaa jira tiro aad u yar oo caqabadaha haysta oo u baahan caawinteena. caqabadahaas waxa weeye dhalinyaro waxaa soo gala waddankan da'yar ah oo aad u yaryar ma helin cid hagta. waxaa markaasi ka tambatay bulshooyinka qaybahooda kala duwan, ninba bulshada meel uga aadaa. nasiib wanaag waxay uga aadeen bulshada qaybihii xumaa, waxay barteen balwadahaas haddii ay barteen dhalinyaradii waxay noqdeen dambiiliyaal, waxay noqdeen kuwa xabsi gala, waxay noqdeen kuwa baanhoofyada ama dariiqyada ku nool. marka dhalinyaradaasi iyaga ah cidda keliya maanta mas-uul ilaahay ka sokow ka ah waa anaga dadkeena Soomaaliyeed ee waddankan degan. dhanka kale, Tahliil Colaad Xasan oo ka socday ururka Daryeelsan ayaa sheegay in dhalinyaro badan ay la tacaalayaan culeysyo nafsiyadeed iyo la qabsiga nolol cusub, taas oo u baahan taageero iyo faham bulsho. maanta inaad la socotaan oo malaynaa Jarmalka waxaa ka jiro Soomaali badan oo maaragtay dhibaatooyin ayaga isu geysteen iyo kuwa ay dad u geysteen lagu haysto. kulligood waxaa waaye bulshada qayb ka yihiin. maxkamadaha dadka turjubaanada yaqaanaan, maxkamadaha marka la tago Soomaali badan aa jirto oo maxkamadaha looga yeero. bulshada qayb ka yihiin, laakiin dambiye ay galeen iyo maaragtay waxyaabo ay geysteen maxkamada lagu saaraa. annaga ma ogin qofka fal dambiyeedka sameeya, qofka wanaagsan, qofka qabiiliga ah oo maaragtay qabyaaladda iyo dadka kala qoqobkeeda qaybta ka ah, kulligeen annagu nagu dhex jiraa, guriga ka soo baxaa. qof walba oo naga mid ah qof uu yaqaanaa. marka annaga waxay mas'uuliyad naga saaran tahay inaan maaragtay qofka ama dadka ka wacyigelinno dhibaateynta bulshada. Faaiz Wadani iyo Maama Dheeho ayaa si adag uga hadleen burburka qoysaska iyo saameynta uu ku yeelan karo carruurta, iyagoo ugu baaqay waalidiinta in ay doortaan xal iyo dulqaad. inta badanna burburka reerahana wuxuu ka dhashaa waxay tahay isdhegays la'aanta, in la isku tanaasulo. Soomaaliyeed oo 5 carruur haysto ama 7 carruur haysto kule 3 nin iga soo dhashay, 4 nin iga soo dhashay, haddana single ahay. marka waxaa loo baahan yahay waxay tahay si guurarka yacni ay u wanaagsanaadaan in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka fiirsadaan markay guursanayaan qofka ku habboon inay guursado. dumarkuna waxa weeye iyagana si gaar ah waxaan leeyahay halka markay yimaadaan nimankooda waxay yiraahdaan balay ma Afrikaad moodo inaad joogo maxaad ii gumaysanaysaa. marka waxaan leeyahay saas aawadeed iyaguna ha ka laabtaan. diinta islaamka Afrikana waa joogtaa, Jarmalna waa joogtaa. waa shay muqaddisa in la qabto. waxa weeye sida wiilkii yarka ee dad aad ka horeeyay wuxuu gabadha ka fiirsato dhaqankeeda iyo ninka ay guursanayso akhlaaqdiisa ka fiirsato. iyaduna waa shay muqaddisa, waa inay ka fiirsataa. waxaan leeyahay hadsina uma fiirsan karto dee inaan Soomaaliyeed bay guursanayso wiilashuna dee waddanka ayagoo barkad faroojo ku ay yimaadeen. marka ninkii faroojada ayoo aad taqaano ehelnimo aad u guursatay wuxuu rabo samayn karaa. marka Allah ay badan weeye. marka waxaan leeyahay wiilasha yarka ah la sameeyo marjac diinta loo laabto. islaamnimadeenu waxa weeye waa muqaddis. sidoo kale suugaanyahan Cabdullaahi Cadnaan Xasan ayaa suugaan qiimo leh ku muujiyay doorka muhiimka ah ee hooyadu ay ku leedahay dhismaha qoyska iyo bulshada. maasada hooyada waxaa la yiraahdaa higil weyn. kolley waqtigan taariikhda ku soo jiray hooyo ka mid ah hooyooyinkii la socdo ubad sidatay ayaa markaan arkay hooyadaasoo si fiican ubadkeedu ay u qurux badan yihiin, iyaduna liidata. maanta haddii cunto la siiyo iyadoo aan cunayn ilaa ciyaalkeegu ay cunaan, iyadoo aan seexanin ilaa ciyaalkeegu seexdaan, ayagu dhalatay inaan wax ka qoro
maalintii horena waan ka cudur daartay inaan magaceega kusoo daro laakiin copyright sayna u noqon cid kasta ugu qabsan baan magaceega ugu soo daray marka maansada waxaa la yidhaha higilna malaa inaan higil laftirkeega inaan fasiray noqonaysa malaa higil waxa weeyaan qofka hamada leh hami weyn oo kale higil bay marka Soomaalidu hore oran jireen marka maansada waxay ka bilaabmaysaa sidan hawraarta maansada hooyada ka hadasha tirahoodana weeyaan mahadraawi baan odhan marka aad nin hoolo gurigiisa habaqluhu isku soo haleeya hayntiisa quud hoo lama hura dhashaaba hooyo lagu xasuustaa anna haatan maansada higil weyn baligaho hanfi weeye geedigu hanadkii qaboo xidhan hiil adduunye idilkii halka doolar daayo diinaar hadday tahay haynteedu waa eber haddaan eegay ubadkii habaas iyo hantaaq male hal habeen badaayo hal daqiiqo kuwana hawl iyo haraad maray maskaxdayda gelin waa halkan kale bal eego hiba xaamud weeyaan oo kan markaa magaceegu xaggu soo galay halkan kale bal eego hiba xaamud weeyaan harag iyo laf weeyaan hilibkii saraa tegay habaaskaa ka muuqdaa ha koraan hadday tahay hooyo qaali weeyaan hormuudkii makhluuqiyo halye keento weeyaan waxa hanad adduunyada heer sareete gaadhiyo haweenkaa hadday tahay horaadkay jaqsiiso hal abuurto weeyaan anna haatan higil weyn waxa aan ku leeyahay hooyay ammaanta afku koobi maaye hagihii adduunkaay hiilkii aqoontaay hanka ruuxa dhisa iyo haybadii adduunkaay gunaanadka barnaamijka ayaa ka qaybgalayaasha loogu kala qaybiyey kooxo si ay ugu doodaan sidii dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa muqaadaraadka loo xoojin lahaa midnimada bulshada looguna wadaagi lahaa fursadaha shaqo iyo waxbarasho kulanka ayaa kusoo idlaaday jawi isfahan iyo dhiirigelin iyo ballanqaad sidii xal loogu heli lahaa wada shaqaynta bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Hamburg